TV-ga warsan ayaa booqasho ku tagay bridge-ka saddexaad ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee magaalada Hargeysa oo dhismihiisu si habsami ah u socdo waxaana injineerada iyo shaqaaluhu ay noo sheegeen in shaqadu ay si fiican u socoto bridge-kan ayaa qayb weyn ka qaadan kara isu socodka guud ahaan bulshada ku nool caasimadda magaalada Hargeysa gaadiidka ayaa kuwa inta badan dib ku qaba katalowga dooxa iyadoo marka uu dooxan isoo rogmado gebi ahaanba aanay marin gaadiidku Cabdirashiid Maxamed Ibrahim Janagale oo la hadlayay TV-ga warsan ayaa u sheegay inay hawshii dib u bilaabantay isla markaana ay habeen iyo maalinba wadaan dhismaha bridge-kani isagoo sidoo kalena ka hadlay inay aad u badan yihiin shaqaalaha ka howlgala bridge-kan iyagoo u qaybsama buu yidhi 3 qaybood muddo dheer kadib shaqadu way bilaabantay bishiina dhaaftay sanadka bishiisa koowaad bay bilaabantay marka wixii faahfaahina kulay gudidii wasaaradii iyo wasiiradii iyo hay'adii iyo injineeradii Janagale Construction Company dhamaan tood ay shir bay mar kale wada qaban doonaan marka waqtigaas insha Allah idin yeeri doonaa kulay hawshu waa socotaan waxa ka duuban kartaan bridge-kan ayaa la rajeynayaa inuu qayb weyn ka qaadan doono horumarka dhinaca isu socodka gaadiidka ee magaalada Hargeysa Maxamed Cabdi Qalinle TV-ga warsan Hargeysa